السلام عليكم walaalayaal waan salaamay walaalayaal waxaan wali sii wadnaa barashadii PHP variables constant and data types marka casharkani wuxuu ku saabsan yahay sida loo isticmaalo constantiga constantigu waa sida variable oo kale ujeedada aan u isticmaalayna waxay tahay inaan ku kaydino informationkaas uu programkeena mar walba maaragtay access ku samayn karo oo si uu markaa u isticmaali karo sidaad hore u ogeydeen ba casharadani hore waxaan kusoo baranay string integer iyo float marka kan wuxuu ku saabsan yahay constant marka sababta aan usoo kala hormariyay boolean constant waxay tahay marka hore constantigu wuxuu la xiriiraa kuwii hore aan usoo baranay marka markaan kaa fahamno then way noo sahlan tahay inta kale inaan fahmno haddii ilaahay rabo marka sida slide-kan nooga muuqda hadda aad ujeedaan waa tusaale aan u isticmaalayno sida loo isticmaalo constantiga marka markaan aan isticmaalayno constantiga badanaa markaan rabno inaan declare gareyno waxaan isticmaalaa function la dhaho define so functionka la dhaho define waa function qaata laba argumentigu qaato kana waa argumentigu lagu sheega wax kale maaha si uu u ambaqaado hawshaad ugu dirtay laba shay ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay shaygii uu wax ku kaydin lahaa iyo wixii la kaydin lahaa oo lagu kaydin lahaa shayga marka hore abuurtay marka salaantu waa shaygan wax ku kaydinaynay ku soo dhawaa PHP na waxaan rabnay inaan ku kaydino salaanta marka meesha hoos ku qoran sida caadadu ahaydba waxaan ku maaragtay qoraynaa ama bogga screenkiisa ku qoraynaa wixii aan ku kaydinay marka aynu aragno sida soo socoto marka halkan waxaan aan sameeyay adana aan declare gareeyay file cusub oo magaciisa la dhaho constant.demo.php marka filashaas waxaan kusoo koobiyay codekii hadda aan soo aragnay marka xoogaa structure-kii markii hore aan isticmaalay wax yar ayaan ka bedelay hadda waxaan isticmaalayaa sida meeshan ka muuqato faalooyinka uu PHP isticmaalo long comments-ka marka laba line iyo ka badan markaa rabtid inaad maaragtay comment ku samaysid waa inaad saa u declare gareysaa oo inta u dhaxaysa labadaas shay dhexdooda aad comment ku qortaa marka hadda waxaan tusaalahan rabnaa inaan rabo inaan tuso laba qaybood ayaan u qaybinaa oo step 1 iyo step 2 step 1 marka waxay tahay qeex constant ay ku kaydsan tahay salaan marka constantiga aan rabno inaan wax ku kaydino waa kan waa salaan shayga aan rabno inaan constantiga ku kaydino muxuu yahay ku soo dhawo PHP marka labadaas argument ayuu functionkan u baahan yahay la dhaho define waa function loo isticmaalo abuurista constantiga marka step 1 waa kaas marka step 2 waxa weeyaan inaan demonstrate ama aan screenka ku qorno waxa ku kaydsan salaan si aan u fahmno marka walaanu save gareyno shirino localhost kaydka PHP and / waxaan ku qoraynaa constant demo sida halkan ka muuqata waad ujeedaan waxaa meesha ku soo baxday oo noo soo baxday ku soo dhawow PHP marka haddaan saa isu barbar dhigno wax kale ma aha oo haddana mar labaad inagu celiyo xoogaa sharaxi wax yar functionkan define la dhaha ayaa noo suurtageliyay inaan ereygan salaanta qeexno salaantaas aan qeexnay ereygaas waxaan rabnaa inaan ku kaydino string magaceedu yahay ku soo dhawo PHP macnaha wax halkan ku jiro halkan aan rabnaa inaan ku kaydino marka step 2 waxa weeye inaan tusaaleyno ama aan barnaamijka maaragtay aan programka u sheegno in uu na siiyo waxa ku kaydsan salaan marka bal waxaan tusayaa muhiimadda aan rabo inaan halkan waxaan tusaale waxay tahay haddii functionka ama declarationka adiga ama qeexaysa aad samaysid aad waxa ku kaydinaysaa uu yahay xarfo waaweyn sida hadda meeshan ka muuqata salaan hadda bal fiiri haddaan ereygaa yar haddaan hadda maanta qoro meesha halka ku qoro salaan oo far yar yara programku ma yeelayo sababtuus u yeelan waxay tahay waan save gareynayaa sababtuus u yeelan wax kale ma ahee waxay tahay sidii markii hore aan u declare gareyno waa inaad u isticmaasho shayga waa ujeedaa wuxuu leeyahay halkan sida ka muuqata programkaaga waxbaa ka qaldan oo syntax error ayuu sheegay warning waxbaad isticmaalaysa waxbaa qaldan marka wuxuu leeyahay line 8 fiiri codekaaga haddaan line 8 codekayga fiirino muxuu yahay
so line 8 meesha wax ka qaldan yihiin waa because ereygii aan declare garaynay oo salaan far waaweyn ahayd iyo kaan rabno inaan qorno oo ah salaan far yaryar ah isku meel ma geli karaan marka inaad muhiim waxa weeye aad fahamtaan difference u dhexeeya marka waxaa muhiim halkan inaan salaan far waaweyn ka dhigno haddana sidii hore oon kusoo celino oon save garayno ku noqono meeshii halka kor u qaadno xoogaa aan dhahno refresh waa ujeedaa waxaa noo soo baxay kusoo dhawa php marka taas waxay ku tusaysaa importantiga hadda aad rabto inaan meeshan xigmadda ku jirto aan rabo inaad fahamtaan waxay tahay shayga aad declare garaynaysaa mar walba waa in aad sidii aad u declare garaysaa u isticmaasha haddii aad si ka duwan u isticmaasho far waaweyn aad ku declare garayso variableka far yar aad damacdo inaad maaragtay ku weydiiso computerka inuu ku print garayo waa adkaanaysaa marka saas waa mahadsantihiin wal casharka dambe aan isku arkayna haddii ilaha yirahdo asalaamu calaykum